wufuud ay hogaaminayaan gudoomiyaasha baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo kan Djibouti ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo. Garoonka diyaaradaha ee Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed, gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka, xildhibaano, wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee reer Baydhabo. Maxamed Cali Xaamud, gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti, iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxa ay kormeer kooban ku sameeyeen madaxtooyada Koonfur Galbeed, waxaana gudaha madaxtooyada ay kula hadleen warfidiyaanka iyagoona ka warbixiyay ujeedka safarkooda Baydhabo. marka hore waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti mudane Maxamed Cali Xaamud iyo wafdigiisa oo Soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah, gaar ahaan halkaan soo booqday Koonfur Galbeed. gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. waan rajaynaynaa insha Allah tacaala 9 bisha inuu furmi doono. gudoomiyaha waxaan leenahay ku soo dhawow wadankaaga labaad, ku soo dhawow. gudoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen, runtii oo noo sameeyay soo dhaweyn aad u diiran, oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay. saas oo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas'uuliyiinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan, iyo bulshada reer Koonfur Galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahamsan. aad iyo aad u mahadsantihiin. الرحمن الرحيم. فيركي أنهن دايسنا ندايسو أنهن دعسو نتبه وزير البرلمان بهيني محمد نصرها النافع من يميتين وفدها فاق كسر قدر الحساب لما هكا أكل كذا رأيونها باي شعبنا السوريسي هي أو مكفت كباهي نهي كي أكاكاي برلمان كباهي نهي كادو كذا كذا حساب. وحكي مركب هو الرئيس سيما شرف له قدوميها فدرال كمرك قدوميها برلمان فدرال محمد مرسل سيدنا مسؤولي يو مركب لبعضنا وحنا نقيا مرت شرفك انت عليك ما ركي ما تسمى مسؤولي قدوميها كونفور قلبي مدحوينها كونفور قلبي يو gudoomiyaha ku-xigeenkiisa iyo matasharaaf ka maaragtay baarlamaanka meesha lagu soo dhaweeyo shacabka waan u mahadnaqayaa. Soomaaliya kaadu ka yina nek lama to baroy asaku nek lama to baro shini miya asaku elena ninan baydawa nek bubu hare alabadna wuxuu yidhi maanta aad iyo aad Soomaaliya waa dhulkeedii labaad. alabadna wuxuu yidhi maanta Baydhabo maanta gooni ahaan sharaf bay tahay inaan labada gudoomiye Djibouti iyo kan Soomaaliya waxaa la filayaa in ay ka qayb galaan furitaanka kalfadhiga 8aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga SABC TV, Baydhabo.